goobtani waa goobta loo asteeyay dadkii ku ganacsan jiray suuqii hore ee Tuwele. Goobtan iyadu waxa ay tahay xiriirigtii hore ee magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer laga raray. Goobtan ayaa waxa ay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee gobolka Togdheer ay ku bireeyeen saribad cusub isla markaana ay u soo rareen dadkii ku ganacsan jiray saribadii hore lagu magacaabi jiray Tuwele ama Gobonimo. dadkan ayaa waxa ay saaka cabasho baan ka muujiyeen saribadani ay dawladda hoose iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose ay u hirgeliyeen in aan ilaa hadda wax adeegyo oo ku filan aan loo fidinin. dadkii laga soo raray suuqan Tuwele dawladda waanu maqalay arintii waanu aqbalay waan soo guuray waxaana la keenay guryaha xiran ee aan kadinka yar la iska soo tagay meel kale aan ka banaanayn in dawladdu sharafta wax ka qabato guriga naga hagaajiso si fiican si aan anana u maqalay oo aqbalay inay naga hagaajiyaan oo wixii aan cabayna naga hagaajiyaan kadimada noo baneeyaan oo naga hagaajiyaan nama cidinooma iman cidino maxaa qabtaan lama oran waa adika arko de waa aragtan miisaskiina maran yihiin oo banaan yihiin waa aragtaan de walaalayaal waxaan doonaynaa dawladda sharafta wax ka qabato oo kadimada noo baneyso oo hagaajiso oo biyaha noo galiso haraadna waanu baqtino cagada sanseena guryaha subaxii waxaan ka nimaadnaa October dabadiisa cagada san wax ku soo qaadanaa labaad cabad badan baan muujinaynaa waxaanu dadkii laga soo raray suuqa Tuwele siba waxaan nahay dadkii hilibla ahaa ee hilibka ku ganacsan jiray waan la soo raray meel aqal xiran baan la soo galiyay waxaan ku wiri albaab ma leh gidaar baa loo dhaxaysiyay meel walba meel luuq aad moodo aqal la daheeyay oo la xidha baa ka wareega ummadii way gali kar wado laga ganacsan waayay waa laga yaacay bacd cilaa bay tuban yihiin lama kala habaynin waxaan baaq u dirayaa dawladda sharafta leh iyo dawladda hoose iyo maayarka magaalada ee intuu soo xareeyay dabeetana naxariiseed baan ugu eegin dub baan ugu soo noqonin dubna mu eegin waa la idinka hadhaynayaa baa la yiri gidaarka la jabinayaa baa la yiri biyo la idin gelinayaa baa la yiri dadka la sukeenaya shacabka oo dhan baa meesha la soo xareynayaa baa la yiri 10 qof oo aad moodo in lagu xiray oo maxaabis la moodaa baa lagu xirana jabiyo kaasaan ka cabanayna waxaanu kala ka cabanayna kudaafada in la ka fogeeyo mar walba la ka xaadhaan doonayna oo cagafyana loo keeno talabaad waxaan doonaynaa biyo gelin biyaha naloo gasho oo daharaad baabana dilayba waxa raad la yiraahdo dilo meel ka cabna ma haysano marka waxa weeyaan dawladda waan u hoggaansanay laakiin cabashooyin badan baan mid kale dadku waa naga yaacay oo way naga tageen hal soo celiya dadka suuqadan ha naloo soo raro ha naloo soo kordhiyay oo de suuqada ha naloo soo raro Soomaalidan garan waxaan Tuwele baanu deganayn ganacsataan ahayn mid sharaf loo marayo iskuul ka baxaya mid jaamacad loo dirayaba hooyooyinka halka ku ganacsada ayaa muruqmaalkooda ku shaqaysan jiray waxa weeyaan waana la soo raray waana la soo duubay meel awalba xiriirig laga raray oo cidla ahayd oo garba ka lulata ayaan loo danayna lagu soo shubay tiina cadaaladeedii lama simin inina waxaan ku yiri niman kala u gacan haadinayo booshariyahay hor fadhiistay inna albaaba lagu xidho ay dadkii soo kicisay ee maatadii soo kicisay ee bacadkaana wadhay inay naga eegto oo hoos noo eegto noo dhisto guryaha noo dhisto oo dhulka kale aan ka cabanayno wax nooga qabato annagu waanu soo yeelay hadalkeedii waanaanu soo raacnay aqal baa nala ku xireeyay aqalkii markii nala ku xireeyayna bacad baa nala tooymka 10 ka cashaan taagnay bacad baan saa u tubanna isku soo wada duuba ganacsatadan iyo danyarta ayaa iyagu ka cabanayay baahiyo ku gadaaman goobtani amaba si saribadani ay dawladda hoose ee Burco ay u soo rartay dadkan iyagu hore uga ganacsan jiray suuqa Tuwele kaasi hadda laga dhigay wadajida dadkan ay iyagu sidoo kale cabashadooda ay salka ku haysay wax qabad laan baahsan oo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Burco ay ku eegayaan shacabkaasi oo ay kamid yihiin biyo la'aan leeyli iyo goobo qashin oo iyagu ka agdhow saribadani ay dadkani ku ganacsan jiray suuqaasi hore u soo rareen suuqani cusub ku gadaaman Soomaali Cabdi Axmed Kanile Kalsan TV gudaha magaalada Burco.